imika lagu kala baxaya waka dagaallo culus oo ka bilowday deegaano ka tirsan galbeedka Somaliland si gaar ah gobolada Awdal iyo Salal waxaan kula wadaagi doonaa dagaaladan iyo sidoo kale deegaanada lagu hayo ka tirsan oo ay ka socdaan maxaa khasaaraha oo jira sidoo kale ciidamada militariga Somaliland tallaabo nuucee ayay qaadeen waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan xilli leeyahay waxaa la kala qabsaday maxaabiis waxaana jira khasaarooyin xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac madaxweyne cabdiraxmaan ciro oo amar degdeg ah soo saaray sidoo kalena kulamo kala duwan ka wada magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland xilli beesha ciise ay bilaabeen in ciidamadii ugu badnaa ay ka soo gudbiyaan deegaano ka tirsan xadka ay wadaagaan Djibouti iyo sidoo kale gobolada Awdal iyo Salal si guud ayaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad dheeriya oo arrimahaas ku saabsan dawladda Djibouti diyaaradaheeda maxay ka soo dooneen hawada deegaano ka tirsan galbeedka Somaliland oo markii ugu horeeyay halkaasi laga arkay xogo iyo macluumaad dheeriyo arrimahaas ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale xasaasiga ah daawad doontaan haddii weebeedmo waxaa qayb ka ah madaxweynaha Somaliland cabdiraxmaan ciro ayaa isku diyaarinaya in safar degdeg ah uu dalka kaga baxo haddaba ciro halkee ayuu ku socdaa warar iyo macluumaad dheeriya oo arrimahaas ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale xasaasiga ah daawad doontaan haddii weebeedmo waxaa qayb ka ah koox ka tirsan argagixisada al-shabaab ayaa markii ugu horeysay ka soo shaac baxday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool baqdin xooggan ayaana soo wajahday Puntland iyo Somaliland haddaba Puntland waa maxay nooca tallaabo ay qaadi doonto maxaa ka jira in Puntland ay doonayso in gabyaan bay xirto xadka ay la wadaagto maamulka waqooyi bari sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii uu ku sugnaa magaalada Laascaanood miyuu sigtay ama isku day dil miyuu ka badbaaday xogo iyo macluumaad dheeriya iyo xogo sirdoon oo la helay ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordhay ayaa daawad doontaan haddii weebeedmo balse marka hore soo dhawaada laakiin muuqaalka la wadaag saaxiibadaada qayb ka noqo saaxiibada ku xiran waxaan ku soconnaa wadadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman ee sulka saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin waagaag aynu ku bilowno sidaan xogaa ku helayno dagaallo culus ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay ka qarxeen deegaanka lagu magacaabo Usuli iyo Beeya Dheere oo hoostaga degmooyinka Lughayo iyo sidoo kale degmada lagu magacaabo Garbadadar waxaana jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkaasi ka dhashay sida aan wararka ku helayno dagaalka ayaa waxaa soo qaaday maleeshiyaadka beesha ciise waxayna weerareen maleeshiyo u dhashay beesha Samaroon oo madani ah kuna sugnaa deegaanadaasi dagaaladan ayaana la xaqiijiyay in ay ahaayeen dagaallo adag oo khasaarihii ugu badnaa ee dhimasho iyo mid dhaawac ay sababeen warbaahinta bulshada ayaa si weyn loogu hadlayaa dagaalkan ka qarxay deegaanada galbeedka Somaliland waxaana la leeyahay Somaliland wixii la damacsanaa durbo waa ay soo baxayaan sababtoo ah waqti xaadirkan dagaalka ka socda deegaanada galbeedka Somaliland waxaa la aaminsan yahay in dawlado shisheeye sida Djibouti Soomaaliya Turkiga iyo Qatar arrintaani ay ku lug leeyihiin dagaalada ugu qaraar ayaa waxay ka dhaceen deegaanka Beeya Dheere oo hoostaga degmada Lughayo waxaana la leeyahay in khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac waxay gaareen ilaa iyo 10 qof oo dhimasho labada dhinac dhaawacuna intaas inuu ka badan yahay ayaa la xaqiijiyay beesha ciise durbo waxay bilaabeen in maleeshiyaad kala duwan ay soo galiyaan deegaano ka tirsan galbeedka Somaliland waxaana xogii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in maleeshiyaad badan oo beesha ciise u dhashay ay ka soo gudbeen dhinaca xadka sidoo kale waxaa markii ugu horeysay la arkay diyaarado dagaal oo ay leedahay dawladda Djibouti iyadoo oo beesha ciise ay u muuqato in markaan dagaal ay soo tafaxiidatay Ismaaciil Cumar Gelle oo ah madaxweynaha waddanka Djibouti waqti xaadirkan doorasho galaya ayaa Somaliland wuxuu kala dhaxeeyaa khilaaf xooggan Somaliland iyadoo laftirkeeda dhanka baraha bulshada dagaal xooggan ay ku qaaday dawladda Djibouti oo dagaallo culus oo ka dhacay gudaha waddanka Djibouti waxaa si weyn u bunbuniyay warbaahinta Somaliland oo muuqatay in dagaal toos ah ay la galayaan dawladda Djibouti maadaama Djiboutiyaanku iyagu laftirkooda aysan waxba dhowran iyadoo arrimahaas ay jiraan ayaa haddana waxaa la leeyahay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa ka dambeeya dhibaatooyinkan iyo dagaaladan culus ee u dhaxeeya beelaha ciise iyo Samaroon iyadoo ciidamada militariga Somaliland la xaqiijiyay in ay si toos u garab siinayaan beesha Samaroon
cabdiraxmaan ciro iyo dowladdiisa waxay qaadeen istaraatiijiyad ah in la garab istaaga beesha samaroon maadaama beesha samaroon ay doonayaan inay ka adkaadaan beesha ciise oo iyadu waqti xadarkan u muuqata mid laga soo baritaaraya xamar iyo sidoo kale dhinaca iyo dalka jabuuti jabhadaha madaniga ee beelaha samaroon ayaa shalaytu sidoo kale shir jiraayad qabtay iyagoo sita calanka somalilan waxayna ku dhawaaqeen inay ka shaqaynayaan midnimada iyo wadajirka guud ahaanba shacabka reer somalilan ixtiraafka israel laga helana ay soo dhoweynayaan iyagoo sheegay ujeeddadooda inay tahay in beesha ciise gebi ahaanba laga nadiifiyo deegaanada ay kaga sugan yihiin galbeedka somalilan laakiin dhanka beesha ciise maleeshiyaad aan tiro yareen ayay soo geliyeen deegaanada galbeedka si gaara gobollada owdal iyo salal waxaana la xaqiijiyey in ciise iyo maleeshiyaadkoodu ay soo buuxdhaafiyeen meelo badan oo ay qayb ka tahay dhinaca iyo sidoo kale xariira heemaal iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo bolol dhammaantoodna waxaa la xaqiijiyey in halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada beesha ciise galbeedka somalilan si guud xaaladdu waxay u muuqataa mid cakiran sidoo kale ciidamada militariga somalilan waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay doonayaan in gebi ahaanba ay kaga hortagaan xaaladan cakiran inkastoo somalilan ay u muuqato inay qaadatay istaraatiijiyad ah in si toosa loo garab istaago ciidamada beesha samaroon oo maadaama iyagu ay ogol yihiin somalilandnimada sidoo kalena dhibaato kale aysan wadan laakiin beesha ciise waxaa la leeyahay waa beel u muuqata in halkaasi ay doonayaan in maamul cusub ay ka dhisaan ciise durbo waxay muujiyeen rabitaankooda sidoo kale maamul la yidhahdo governing state ayaa looga dhawaaqay magaalada muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matala beesha ciise ayaana tallaabadaasi qaaday iyadoo haatan ay jirto cabsi badan somalilandna waxay qaadaysaa tallaabooyin dhowra iyadoo madaxweyne cabdiraxmaan ciro durbo uu magaalada hargeysa ka bilaabay kulamo kala duwan oo ku doonayo in xaaladda deegaanada galbeedka looga hadlo wararka qaar ayaana sheegaya inay u badan tahay in gobolkaasi la geliyo xaalad degdega sidoo kalena ciidamo militari oo gaara gobolkaasi lagu wareejiyo maadaama xaaladiisu ay noqotay mid soo laalaabatay jabhadaha halkaasi joogana ay noqdeen kuwa tirabeel in ka badan 7,000 oo ciidan oo jabhadaha beelaha ciise iyo samaroon ayaa la xaqiijiyey in gobolkaasi ay ku sugan yihiin tani oo keeni karta in xaaladdu ay faraha kasii baxdo wararka la xiriira dagaalada halkan ka qarxay iyo xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ee usuli iyo sidoo kale beeya dheere oo hoostaga lagu hayo iyo degmada lagu magacaabo garbo dadar wixii warar arrimahan kusoo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa dhinaca kalena madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa isku diyaarinaya saacadaha soo aadan in uu safar mar kale kaga baxo somalilan ciro ayaa soo gebagabeeyey kulamo kala duwan uu ka waday magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaana xogii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in madaxweyne cabdiraxmaan ciro uu safarkan u aadi doono dal afrikaana inkastoo ilaa iyo haatan aan la shaacin dalka uu ciro aadi doono warar kala duwan ayaa ka soo baxaya safarka madaxweyne cabdiraxmaan ciro iyo waxyaabaha ku gadaaman iyo ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa laakiin ciro ayaa la xaqiijiyey in uu safar yahay iyadoo xisad mudan tahay in ciro safaradiisa dalka dibadda ay noqdeen kuwo isdaba joog ah haatan ayuuna ka soo laabtay dalka switzerland oo kaga qayb galay kulamo kala duwan mar kalena waxaa la xaqiijiyey in madaxweynuhu uu safri doono ilaa iyo haatan si dhaba looma ogo dalka ciro u safraya laakiin wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan in madaxweyne cabdiraxmaan ciro uu u safri doono dalka etoobiya ama dalka lagu magacaabo gini midkood waxaana soo raaci kara dalka south africa inkastoo aan si dhaba loo ogeyn safarka madaxweyne cabdiraxmaan ciro iyo halka uu ku tacalluqo xafiiska madaxtooyada somalilan ilaa iyo haatan way ka gaabsanayaan in faahfaahinno iyo xogo dheeriya ay ka bixiyaan wararka la xiriira safarka madaxweyne cabdiraxmaan ciro laakiin waxaa la xaqiijiyey in madaxweynuhu uu safrayo ciro ayaa dhowaan waxuu ku faanay in guulo dhanka diblomaasiyadda uu ka soo gaaray dalalka yurub halkaasi oo safarro kala duwan uu ku bixiyey waxaana uu sheegay in somalilan ay doonayso keliya ictiraaf gacan hoorsi ma doonayno ereygaas ayaa noqday mid warbaahinta caalamka gebiyahaanba ay hadalhayaan halka inta badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa caalamka ay weydiistaan kaalmo dhinacyo kala duwan leh sida kaalmada ah in soomaaliya dhaqaale lagu taageero ciro iyo safarkiisa waxyaabaha ka soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa ugu dambeynna cabsi xoogan ayaa soo food saartay puntland iyo somalilan kadib markii maleeshiya ka tirsan argagixisada al-shabaab
garabkooda deegaanada maamulka waqooyi bari halkaasi looga dhawaaqay koox wejiga xiratay oo xubno ilaa iyo 5 gaaraya ayaa warbaahinta ka soo muuqatay saacadihii la soo dhaafay waxaana kooxdan ay sheegeen inay weerari doonaan burco berbere iyo guud ahaanba deegaanada puntland iyo somaliland kooxdan ayaa la sheegay in xiriir toos ay la leedahay kooxda al-shabaab waxaana jirta in somaliland dhowr jeer iyo puntland ay ku doodeen in laascaanood ay joogaan xubno ka tirsan al-shabaab xitaa waxaa soo baxay warar sheegaya in madaxweynaha soomaaliya amnigiisu uu khatar galay dhowaan marka uu tagay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool puntland ayaa durbo waxay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin kala duwan si amnigeeda ay u xaqiijiso wararka qaarna waxay sheegayaan in puntland ay gebi ahaanba xadka SSC Khaatumo iyo sidoo kale puntland u dhaxeeya la soo xiri doono si amniga loo ilaaliyo Khaatumo ayaa waxay wajahayaan eedeymo xooggan waxaana xitaa dadka la eedeynaya qayb ka ah cabdimadoobe sargaalka lagu magacaabo kaas oo la leeyahay waxa uu ka mid ahaa xubno hore uga tirsanaa kooxda al-shabaab haatanna waa ninka ugu sarreeya ciidamada maamulka SSC Khaatumo ee ku sugan aagga degmada Buuhoodle waxaana arrintan ay noqotay cabsi xooggan xitaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shakisay madaxweyne xasan waqtigii ku sugnaa magaalada laascaanood kor inta uusan tegin waa looga digay waxaana leeyahay cabsida haatan waxay noqonaysaa in xitaa mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay hadda wixii ka dambeeya ka fiirsadaan nuuc safar ama safar kasta oo ay ku tegi karaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka ilaa dhamaadka haddii aad soo gaartay waxaan ku xusuusinayaa janalka inaad subscribe inoo saarto qaybna aad ka noqoto saaxiibada inagu xiran waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman ee sulka saar oo subscribe inoo saar janalka mahadsanidin